إيرو دنتا أو إسقو وطا وأجي هاي إنه سن كني كوسو بيرين كرين إيدان يعرف يو محكو شجاي يو قبل يو وح إنه سن كوسو بيرين كرين وأجي هاي لكن هل متبو وطا وضيع إيرو وحو إسلام هي تكدي بربرة ما دابا الباب ده الله يسقو لابي أو يسمح كسو الدجاجرين نمانكي أبسامي أو وحكي لوفسن شرينا أي كل حدا يهين تكدي جرعد وحو إسلام هي الله سو لابتد كاستمر ككل حدا دكده جرعد أو دكده بربرة هوفرانتو أبسامي يوم حنكو شجاي يوم نمانكي اللي ده هي يمكن حبشيدو ديو استيدانيسا هاوديب هاو صولاتين دكده بربرة كاستمر كون حلقة كسو حرم حكاسنا دقالة كاغا صوبحو إسقط وكده أركي maalinta ay taas u hagaagtana wuxuu ku oranaya daniyo kuma aqaan xaalhay maalinta uu customer-ka ku xiran garacad uu u soo laabto uu berber ku soo xirmo kuma aqaan buu leeyahay hadar miyaa taqaana kuma aqaan telefoonka wuu ka dansanaya dani isaga danta ugu jirta maxay tahay waa marka run la isu sheegay xaqiiqda dhabta dani isaga maxaa ugu jirta oo uu isleeyahay maanta waxaad ka heli kartaa hogaamiyaha Iro maxaad ka heli kartaa dani walow kaanan ha ahaato koob shaaha waxa dan ah oo ugu jirta ma jirto aan ka ahayn shay masayrka buu ka dhaxarka dani aanu ila dhashay laakiin waan arkaa marka halka marka isaga customer-kii uu ka baxo oo dekada garacad albaabada loo xiro oo customer-kii ku xidhnaa dekada garacad uu dekada berbera ku xidhmo dani halka horta burbur baa ka soo wajahay in ay dawladii Puntland madaxa dhulka ku dhufato oo ay afka dhulka gashato oo awoodoodii wiiqdo oo maalkeedii wiiqo maal marka la helo awood baa la helaa qofku maal markuu haysto wax kastuu helaa wax kastuu awooda hubbu gadan karaa dad buu kula xaajoon karaa waxa la yiri maalkaaga iyo maradaada waa kula shaqataa qofku haduu hanti haysto adduunka wax kastuu la qaybsan karaa waayo sababtu tahay waxa dhulka kala wadaa waa lacag iyo maal marka isaga daakadiis xidho uu maalkiisa halka ku waayo dhaqaarihii barta ka soo gali jiray uu waayo iskuna diro maamulkii cid u xigay oo garabkiisa ahaa oo khaatuma ay federaalkii ku xidhanto customer-kii garacadna berbera loo bedelo isagu inuu waasho baa ka soo socota maamulkaasina uu halka ku baabao khaatuma markaati maamulka khaatuma yimi khaatumo waa bariishka isku xidha galbeed ila koonfur hadduu yiraahdo isbaaradiisa uu dhigto xaggana wuxuu xuduud kala leeyahay xabashida oo koonfur baa la isu maraa sida xuduud waxaa jira halka xabashida iyo koonfur halka ka gala oo ay leeyahay maxaan ku sheegay xuduudkaasna dhul bahanta degan reer khaatuma degan wuxuu awoodaa inuu xuduudka xirto wuxuu awoodaa oo handamna u xiran ilaa yoomal haadanna u xiran xuduudda xaggan ka qaybisa Puntland iyo maamulkan odaygan Iro hogaamiyaha uu yahay labada haday khaatuma xirato awoodoodana uu leeyahay dani nin la dagaalami kara ma aha Iro iyo hogaamiyaha maamulka hogaamiyaha uu yahayna awoodu shalay uu ku burburiyay buu haystaa marka dani maxaa dani xaaladiisu hadda ku sugan tahay maxaa tala la siin karaa horta dani isaga oo kaliya ma ahe waa giraangir isku xiran oo isaga iyo shacabkiisa iyo maxaan ku sheegay wixii soo dhan ka soo baxday mana arko hadda qof aqli leh oo arinta hadda ka dhidhiyay uma jeedo arintaas waxaan aniga ahaan tala u siinayaa maamulka hadda Puntland leeyahay halka ka jira inuu san dani gacantiisa ku burburin oo la helo dad ka horta ku sameeyo waxa uu hadda ku dhaqmayo inuu habeen kasta intuu waco cod waxaan idin sheegi karaa hadda laga soo duubay xataa dadkan habeen kasta ay telefoonka wada hadlaan cod laga soo duubay xataa haya haddii la arkana la yaabi doono xataa laakiin aniga ahaantii baan u dhigay waxaan sidii arrintan bal waji kala yeelanaysa haddii tan la maqlo way horta gacanta maamulka Puntland hadduu maanta burburo gacanta danigu ku burburaya danina waa nin masay ka dhex muuqdo dantiisa aan garanaynin wax kale aan garanaynin waayo sababtu tahay maamulkan ma aragtay maamul xataa ma dhihi kare hogaamiye kooxeedka Iro wato dan isaga maanta ugu jirta hana ahaatay cid iska geed wax la egnaha ahaatay ma jirto danta ugu jirta maxay tahay muxuu lagu soo biirin karaa wuxuu ka dhawaajiyaan waxa la isu furayaa soo socodkii iyo isdhexgalkii iyo adeega ay isu furayaan iyo xuduudka ka dhaxeeya horta xaguu yaala ma ogolaanayaan reer khaatumo in ay halkaas soo maraan maxaan ku sheegay maamul kooxeedka Iro oo ay Puntland u gudbaan ma ogolaanayaan si inay maxaan ku sheegay Puntland iyo maxaan ku sheegay hogaamiyaha dani maxaan ku kooxdiisu inay soo qaadaan wadada dheer ay u gudbaan maxaan ku sheegay Iro ma dhici karto mid maskaxda geli kartana ma aha ki isaga Irana waa dekada inuu la wareego customer-ka dekada garacad ku xidhan oo ku xidho berbera
haddii talada aan kaga tegayo ugu dambaysana adigu dib isugu noqo masariyuusan kula tegin baan leeyahay daniyow wuxuu yidhi ruux hadduu tanag yahay oo tala ka maanguurto ruux hadduu tanag yahay oo tala ka maanguurto tallaabada xataa wuu gabaa tow siduu qabe eh tusaalena danaa kuugu filan oo haata soo taagan qofka caqliga saliimka ma ogolaan karo yani waxa uu ku dhaqmayo waxa la sii daayay maxaabiis oo reer khaatuma sii daayeen waxaana la isku ogaa iyaguna inay soo daayeen hoos buu telefoon ka diray wuxuu yiri bal igu soo wareejiyay idinkuna anaa idinku soo wareejiyay suur baan u soo xidhay suur soo xidha way fiican tahay maxaabiis la isu sii daayo laakiin waa mid laga midaysan yahay lagumana sii dayn tiradaad sii daysay lambarkii uu reer Puntland sii daayay lambar la eg muusan soo dayn ciro lambar sileeg muuna soo dayn yeelkadeeda anaga taasna ma qusayso anagu maxaabiis dhowr kun aan gacanta ku haysana waxaana ma qusayaan shaqadaasina shaqadayada ma aha laakiin isagu aayahiisa ka talin aayahaaga ka talin aan leeyahay gacanta burburka Puntland gacantaada aysan deeniyo sababsan dibna isugu noqo oo faa'iidada adigu kugu jirta heli kartid waan ka baxay warkaasna waan idin shidayaan adkaatay fogaati waxa meeshan qof baahan saaqo meesto waan siriya qof baahan saaqo meesto qabadaas ninka oo ku qabasta ilaa hobta siyaasadda la socda adeer marka abaar socota ku sinayay waan fahmay ogaas ninkaas ka soo horeeyay hore asiyo halmar ugu xijinaya ma xabiib ma hiraab hadii ay gabadha israacsan karaan u dhiib waa isagaaba had jeer baag abgareynayo hadal sheegay hiraab ama hadal naadii sida hiraab hayo walaal waa ma xasantahay waxa laga hadlayaan malaynay horta waxaan hambalyeeynaa maxaabiistii ragii dhalinyarta ahayd siyaasadda qodobayso maxaa soo laabanaysaa siyaasadda qodobaysteen ko maya maxaabiista waa macnaha waan hambalyeeynaa in kasta oo ku wanaagsanayd maxaabiistaas inay SSC Khaatumo ay wareejiso oo iyaga lagu xishmeeyo oo looga dambeeyo oo lagu sharfo wixii maxaabiista la kala wareejinayo maadaama ayna Puntland iyo Somaliland wax xuduudana ayna ka dhaxaynin wax ma aragtay dan dhaqaale iyo dhan wax hadii hadda iskaga xidhan aysan jirin kow marka la eego hadda wuxuu wariyay dhaqaalaha iyo dantooda iyo Somaliland waan kala shaqeynaynaa danay kalama shaqeyn karo wax dhaqaalaha Puntland Somaliland wax dhaqaalaha kalama shaqeyn karo waayo xuduud kama dhaxeeyo meel ay isku soo maraan ma jirto maamul baa u dhaxeeya la yiraahdo SSC Khaatumo iyaga wadadii furina kara haddana ay u xidhan tahay waad og tahay Hargeysa inaysan maalinkii 25 bisha ee dagaalku u dhacay ilaa hadda xabadda mooski waxay ka taagan tahay $1 waayo ma mari karto meel marta ma laha diyaarad baa lagu qaadaa lacagtina waxay noqotay cirka hadday noqoto baradho iyo basal Itoobiya ka timaaday khudrad SSC Khaatumo wadadii fadhida iyagaana soo deyn kara iyagaana xidhi kara horta wax isweydaarsi iyo dhaqaale iyo hadii laga hadlayo SSC Khaatumo ka hadli karta iyagaana xidhi kara iyagaana furi kara waa in looga dambeeyaa laguna xishmeeyaa waxa kale oo maanta ku dhintay meeshaas wixii la oran jiray harti waxa gowracay Saciid Cabdullaahi Dani waan ku sababaynayaa buurmadow ninka la yiraahdo waa ninkii caytamayay ee caayayay garaadada ummadda Soomaaliyeed garaadada SSC Khaatumo garaadada waaweyn waa ninkii caynayay ee wacalada ku sheegayay ee soo caytamayay ninkii waxaas oo dhan sameynayay intuu maanta soo dhex istaago garoowe inuu bartaas u ka yiraahdo Daniyo waxaan ku geynayaa Soomaaliya ayaanu madaxweyne kaaga dhiganaa oo adigaan ku taageeraynaa wixii harti ahaa bartaas lagu gowracay bartaas oo ugu dhamaatay SSC Khaatumo iyo Puntland haddii ay in yaroo isku dhawaashiye ay jirtay maanta ayay u kala dhamaatay maanta ayay ku kala tageen nin walba taagta iyo nin walba tabarta iyo nin walba siyaasadda ay noqonaysaa SSC Khaatumona waa sida ugu xidhantay dawladda federaalka mana ka harayso SSC Khaatumo sidaad ogtiin hadda waa maamul goboleed tira oo xuduudale oo sax ah ayna cid isku khilaafsan hadda aysan jirin laakiin waxaad moodaa ilaa hadda inay ka degilaaday Dani SSC Khaatumo maamul goboleed yahay waxaan leeyahay Dani ha ka degto SSC Khaatumo waa maamul goboleed jira waa maamul goboleed sax ah daniisa ka tashanaya ayaysa ka tashanaya xuduudidiisa sugtay nabadgelyadiisa sugtay intaas oo waftiis ku keenay buurmadowna nin ma ka qaadanaya xaafadiisa dhexdeeda oo boqorada iyo garaadada sidii ma koonisa la qaadanaya u soo caytamaya oo bartaas wuxuu raba ka soo sheegaya oo aflagaado iyo qurun iyo qashin halka kaga hadlaya
inuu dhegaysto madaxweyne deni isagoo ummadda dhan ee reer puntland masayrkeega haya waxay ku tahay foolxumo iyo go'doon siyaasadeed oo meel xun ka galay maanta haddii intuu soo dego cirra uu maxaabiistaa soo raaco uu kala hadli lahaa arrimahaas waxaan odhan lahayn waa wax saxaba waa loo qiil baa loo samayn lahaa laakiin buur madow oo maad aragtay dhallinyarada meega ku caytantay qabiilada caaya ee odayaasha iyo meydida caaya sidooda oo kale u caaya oo ka daran oo arsenaal oo lugaynaysa ah inuu idhaahdo xildhibaanada jooga muqdisho ee annaga dhankayga ka yimaada waxaan leeyahay deni ha lagu caleema saaro oo deni madaxweynimaha lagu waxaan leeyahay deni xamar wax kursiga oo ku yaalla ma jiro xamar wax doorasho oo ku galaysaa ma jiro xamar wax madaxweynenimo oo kaaga horeysaa ma jirto dowladdan ka horreysay maxamed cabdillaahi farmaajo 5 sano lama shaqeynin waad ka hadhay dowladda xasan sheekh 5 sano hadda lama shaqeynin wax ka yaala iyo cid xamar ku dooranaysa iyo tegitaan aad tagayso taas isagana uu og yahay ummadda Soomaaliyeedna uu og tahay nin baarlamaanka Puntland dhexdiisa laba su'aalood oo lagu weydiiyay ka jawaabi waayay oo dabnaha cunaya oo bishimaha ku xurinayay oo lahaa ashuun baad ku adimaysaa wixii ka dhaca adaa mas'uuliyadda qaadaysid oo lahaa boowa su'aasha iga jawaab su'aashan weydiiyay gudoomiyaha iga jawaabo oo aamus lagama jawaabiyo lahaa sidoo ku dhextay kara ummadda Soomaaliyeed sidoo baarlamaanka ay iskugu imaanayaan 750 ka xildhibaan soo dabban baa ku sugaye waan soo koobayaa iga raaleeyo king saibo marka dani wax meesha u yaala ma jiro siyaasadiisu way dhimatay Puntland waa uga dhamaatay ummadda Soomaaliyeed waa uga dhamaatay dani hadii uu sharaf leeyahay maanta boqor buur madow intuu soo dhaweysto ee uu Soomaaliland soo dhaweysto Soomaaliland shalay baa waxay ka kaxaysatay 25 doomood oo ay leeyihiin warsangeli ay shalay ka kaxaysatay sidoo yiraahdo Soomaaliland baan wax la leenahay aaway doomaha ka kaxaysatay iyo hantida ummadda ee Puntland qaadatay aaway ma la weydiiyay isaga wadniya waxaan leeyahay sham ayu waxaan waa ceeb ummaddu way ku aragtay cid kasta way ku aragtay waad fashilantay waxaad haysan malaha midnimada ummadda Soomaaliyeed SSC Khaatuma ayaa soo dhaweysay kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed ninka wadaaba waa Saciid Cabdullaahi Deni hadii uuna wadin maanta wuxuu taageeri lahaa SSC Khaatuma oo laga dhisay gobolada waqooyi laga dhisay oo maamul goboleed sax loo aqoonsaday oo midnimada Soomaaliyeed lagu soo dhaweynayo ayuu taageeri lahaa oo dhinaca kale hadii laga eegana ilma adeeradii oo walaaladii laakiin inuu intuu boodo u yiraahdo annagu waxaanu ogolahay masayrkeega inay ka tashato Soomaaliland maxay tahay masayrkeega ka tashanayso ogolaanaya warniyo isku xishooban leenahay waa lagu arkay waa lagu bartay hada sayr ku fi dawladda way ku baratay ummadda Soomaaliyeed ku baratay hay'ad maadariga raalaad waan ka baxay hadalkan intaas ku soo koobay